السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصحابتك وحرن جنة الكمركة للسود واده أدي هذا ومهتسنتين. ما أنت واسبت وأنا صدحي طبعا كبيش سجارة سبتمبر سنة كلا كون يشان يلا باتنك. مقال كان وحن ربائنا ندي كل وداجو. نينكي إسكود دايي إنه ترام دلو بشي سجالات سبتمبر شان يتمن كدي سنة كي هوري حل ترام جولف وكعياري حرون تيس وكل هي فلوريدا ومركي دمبا askari ka tirsan ciidamada ilaaliye madaxweynaha ee Secret Service ku arkay xabad ku riday ninkiina cararay kadibna la soo qabtay maxkamadeyntiisii ayaa Khamiistii bilaabatay waxyaabo la yaab leh ayaa maxkamadeynta ninkan laga soo calaameynaya waxyaabahaas maxay yihiin ninkan isaga ayaa ismatalaya waan ogaan doonaa arrimahaas siday u dhacayaan sidoo kalena hadaladiisii furitaanka ee maxkamadda Khamiistii markii uu bilaabay isla markiiba garsoorihii ayaa hadalkiisa joojisay sababta loo joojiyay maxay tahay dacwadaha uu ninkan wajahayo maxay yihiin muxuu mutaysan karaa hadii lagu helo arrimahaasi oo idin la wadaagaya waa sheeko la yaab leh bal si fiican u daawo marka hore soo dhawaada umrada sanadkan Salama Group waxay idin haysaa adeegyo cusub waxaana kamid ah adeegyadaas hoteello u dhow labada xaram ee Makka iyo Madiina loogana lugeyn karo xilliyada salaada gaadiid aad ku soo booqan doonto goobaha muqaddaska ah ee lagu xusayo taariikhda islaamka 3 barida qaabka loo guto acmaasha umrada 4 umreynta waalidka ama walaalka oo geeriyooday ama aan awoodin 5 haddii aad tahay qof qaba baahi khaas ah xagga caafimaadka waxaan ka caawin doonaa gudashada acmaasha haddaba ku soo dhawow qiimo jaban oo ku raali gelin doona wixii faahfaahintaasi dheer fadlan waa WhatsApp number eber 9645492847 mahadsanidin waalidiinta Soomaaliyeed ee jecel waxbarashada waxa la ogeysiinayaa looguna bishaaraynayaa in maxadka waxbarashada ee Somali Islamic Online oo ku hayo barnaamij waxbarasho diimeed ah oo ka caawinaya in adiga iyo ilmahaaguba aad si fudud u barataan Qur'aanka iyo culumta shariicada maadooyinka dugsiga laga baranayna waxa kamid ah Qur'aanka hikaada ahadiista ducooyinka tarbiyada asaasiga ah ee ilmaha tafsiir iyo qaybaha kale ee culumta shariicada qaabka waxbarashada dugsigaanina waa hab online ah oo waxbarashada aad ku qaadanaysan waxaanad kala xiriiri kartaa Gmail-ka iyo lambarada shaashada kaaga muuqda waxaa jirtay madaxweyne Trump xilligii ololaha doorashada uu ku jiray waliba bilihii ugu dambeeyay lagu jiray in bishii sagaalaad 15keedii sanadkii 2024 madaxweyne Trump oo golf ku ciyaaraya xaruntiisa Trump International Golf Club oo la ciyaaraya waliba nin ay saaxiibahayeen oo maalqabeen Steve Witkoff la yiraahdo Trumpna markii uu guuleystay uu magacaabay ninkaasi ergeyga bariga dhexe u qaabilsan inuu u noqdo oo hadda Ruushka xitaa dagaalka Ukraine uu kula jiro ilaa 2 jeer loo diray caasimadda Moscow si uu Putin ula kulmo ayaa markaasi golfka la ciyaarayay nin waxaa jiray markaa ninkan la soo qabtay oo magaciisa la yiraahdo Ryan Wesley Ruth oo 59 jir ah in uu doonayay in uu Trump dilo ninkan waxa uu sameeyay meel kayma ah oo meesha golfka uu ku ciyaariyay Trump uu galay qorigiisa ayuu qaatay waxa la leeyahay 10 saacadood ayuu halkaasi ku jiray waxa uu sugayay Trump inta uu u soo dhawaanayo meesha jiqda ah uu ku jiray isla markaana waxa uu doonayay inuu Trump toogto markii dambe madaxweynaha waxa ka horeeya ciidamada ilaaliye ee Secret Service-ka ciidamada nin kamid ah oo magaciisa la yiraahdo Roberto Farcano ciidamada Secret Service-ka ayaa arkay ninkan oo meesha ku dhuumaaleysanaya qorigiisana silig meesha ku yilay duuntiisa ay ka soo taagan tahay marka inta Trump uu soo dhawaanaya ayuu sugayay waxa uu doonayay in uu toogto askariga ayaa xabad ku riday ninkii qorigii waa uu ka cararay kadibna qof shacab ayaa wuxuu arkay ninkan oo sii ordaya gaarigii uu watay iyo taargadiisa ayuu sawir ka qaaday booliska ayuu u sheegay isla markiiba wadada highway-ga ayaa 45 daqiiqo kadib lagu soo qabtay waatan markii booliska ay soo qabanayeen iyadoo la yiri gacmaha kor u taag funaanadaada kor u qaad halkaasina lagu soo xiray marka ku dhawaad sanad ayaa hadda ninkan u xirnaa hadda September 15keedii maanta waa 13 maalmood ayaa nooga harsan maxkamadeyntiisa ayaa marka Khamiistii bilaabatay xeerbeegti ayaa la xulay ilaa iyo 12 ruux 7 haween iyo 5 rag iyo 4 kayd ah oo hadii qof xanuunsado qof dani ku soo baxdo bedeli doona garsooraha dhageysanaysa dacwadahan waa dacwada federaal ah garsooruhuna waa federaal maxkamadaha federaalka kaamarooyin looma ogolo sidaan ognahay in lala galo waxaa jira qof sawir gacmeedka ku takhasusay sketch artist la yiraahdo isla markaana sawiraya hadba sida maxkamadda ay wax uga dhacayaan eedeysanaha dacwadoogayaasha qareenada u doodaya xeerbeegtida
garsooraha isaga ayaa sawir gacmeed ku sameynaya marka sketch artist ayaa la yiraahdaa maxkamaduhu markay hor gobol yihiin waa laga yaabaa haddii garsooruhu uu ogolaado in camera lala galo in lasoo duubo laakiin kuwa federaalka kaamirooyin gudaha looma ogolo marka intii ay socotay xulista xeerbeegtida ninkan isaga ayaa ismatelaya wuxuu yiri wax qareena ma rabo aniga isaguna wax background oo dhinaca sharciga ma uusan soo baran aniga ayaa ismatelaya yiri xeerbeegtida marka la xulayo waxaan ognahay su'aalo ay dacwadoogayaashuna weydiiyaan dadka u doodayo qofka eedeysahana ay weydiiyaan maadaama ninkan aan loo doodayn uu isaguna isku doodayo isaga ayaa su'aalo weydiinay garsooruhu marka su'aalaha ay u diiday ninkan Ryan Ruth la yiraahdo inuu xeerbeegtida weydiiyo waxaa kamid ahayd isku daygii Trump uu isku dayay in Greenland uu la soo wareego iyo waliba xeerbeegtida mowqifkooda ay ka taagan yihiin dalka Falastiin garsooruhu ay u diiday iyo sidoo kale su'aal ahayd adigoo gaari wata wadada dhexdeeda diidiin haddii aad ku aragto maxaad samayn lahayd garsooruhu waxay ku tiri su'aalahaasi oo idil xeerbeegtida ma weydiin kartid waa tahay ninkan marka dambiyada federaalka uu ku eedeysan yahay maxay yihiin ninkan dambiyada federaalka uu ku eedeysan yahay waxa kamid ah isku day dil oo uu doonayay in qof madaxtinimada Mareykanka u sharaxan inuu dilo markaas Trump u sharaxayo laakiin hadda waa madaxweyne qodobka labaadna wuxuu waa 5 dambiyada uu ku eedeysan yahay midka labaadna wuxuu yahay in uu haystay qori uu doonayay dambi qalalaasa dhali kara inuu ku geysto waayo haddii xilligaasi Trump la dili lahaa qof madaxweyne u sharaxan taageerayaashiisu maxay sameyn lahaayeen qalalaasa ayaa halkaasi ka dhalan lahaa wadankana waxaa laga yaabaa in qalalaasa weyn uu gali lahaa maadaama Trump taageero fara badan uu leeyahay qodobka saddexaad uu ku eedeysan yahay waxay tahay inuu haystay qori uu ka tirtiray serial numberkii macnaha wuxuu isdahayay marka aad disho fako serial numberkiina waa uu tirtiray laakiin waa markii dambe waa la helo serial numberka waa la aqoonsaday marka waa dambiga saddexaad uu ku eedeysan yahay midka afraadna waxa uu yahay sidoo kalena in uu ahaa qof dambiile ah oo isaguna haystay qori iyo waliba hub intaasi ayay kala ahaayeen dambiyada kala duwan oo ninkan 5 dambi ee kala duwan ee lagu soo eedeeyay waxa jiray sidoo kale attempted assault of federal officer in uu isku dayay sidoo kalena saraakiil federaal ah in uu dhibaateeyo waxay kuwa secret service-ka ee la shaqeynayay madaxweynaha ilaalinay marka 5taasi dambi oo kala duwan ayaa uu ku eedeysan yahay haddii lagu helo dambiyadaasi xabsi daa'in ayuu mutaysan karaa haddaba maalintii furitaanka maxkamadda marka maxaa dhacay waxa laga yaabaa maxkamaddu inay socoto 3 toddobaad iyo bar ilaa iyo 4 toddobaad inay socoto laakiin qareenadu waxay leeyihiin maxkamad la yaab leh la isku diyaariyo maadaama ninkan isagu uu ismatalayo oo aysan jirin qof matalaysa garsoore Ellen Cannon waxay ku amartay ninkan eedeysanaha oo isagu ismatalaya in uusan ka soo bixi ka kursigiisa uusan ka soo kici karin amaba sidoo kalena meesha uu fadhiyo aan loogu talagelin inuu ka soo kaco waayo qofka qareenada waxa loo ogol yahay inay maxkamadda dhex socdaan markay hadlayaan laakiin isagu maadaama eedeysanayo isaguna uu ismatalayo waxa la yiri kursigaada inaad ka soo kacdo laguma ogolo haddaba maalintii furitaanka Khamiistii ay maxkamaddu ay furantay markii maxkamaddu furatay dacwadoogayaashu waxay soo jeediyeen kiiskooda ku xigeenka dacwadoogaha ninka la yiraahdo John Shibley ayaa waxa uu yiri haddii ay uusan ahaan lahayn askarigan ka tirsan ciidamada Secret Service ee madaxweynaha ilaaliya oo la yiraahdo Farcano madaxweyne Trump maalintaasi waa uu dhiman lahaa kullee waqtigiisa qof waliba waqtigiisa markuu dhamaado ayuu dhimanayaa waxaa sidoo kale jirtay in ninkan ka tirsan ciidamada ilaalada madaxweynaha ee Secret Service-ka uu sheegay in isagu uu fashiliyay weerarkaasi la doonayo in Trump lagu dilo maadaama markii uu arkay ninkan uu qorigiisa meesha uu ka soo taagan yahay uu xabad ku riday ninkan markii uu arkay in la ogaado uu halkaasi ka cararay marka waxa uu yiri waxaan u baqay nafsadda madaxweynaha iyo waliba nafsadeyda sidaas ayaa sababtay in aan xabadda aan ku rido marka dacwadoogayaashu waxay yiraahdeen ninkan Ryan Ruth la yiraahdo arrintan muddo ayuu qorsheynayay waxay yiraahdeen muddo toddobaadyo ah ayuu qorsheynayay 17 mar oo kala duwan ayuu tagay Trump International Golf Club oo ilaaleysanaya xilliga uu yimaado xilliga uu ku ciyaaro marka 17 mar oo kala duwan ayuu tagay marka waxa yiri ma jirto sabab kale uu u tagay oo aan ahayn in uu dilo madaxweyne Trump intaas oo idil qorshihiisa ayay kamid ahayd waxuuna halkaas u tagayay in uu dilo waxa sidoo kale la wareystay maalintii maxkamadda furitaanka ee Khamiista ahayd ninkii marqaatiga ah ee markii uu cararayay gaarigii uu watayna sheegay taargadiisana sawir ka qaaday oo la wadaagay ciidamada markaasi goobta joogay ninkaasi ayaa sidoo kale maxkamadda la weydiiyay waxaana la arkayay markii la wareystay kadib Ryan Ruth oo sidoo kalena qofkaasi marqaatiga amaanaya wuxuu yiri shaqo wanaagsan ayaa qabatay geesi American ayaa tahay waana ku faraxsanahay dadaalkaada sidoo kalena askariga Secret Service oo madaxweynaha ciidamada ilaalinayay ayaa sidoo kale wuxuu yiri waan ku faraxsanahay inaad nooshahay
qoyskaadana sidoo kale waa ay ku faraxsan yihiin inaad nooshahay marka macnaha wuxuu ula jeedaa adiga xitaa waxa laga yaabi lahaa in maalintaasi aad dhiman lahayd marka hadal markii la yiri qofka waxa la siiyay